بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Ankara kadib martiqaad ay ka heleen madaxweynaha Jamhuuriyadda ee walaalna Turkiga Recep Tayyip Erdogan. sidaad la wada socotaanba Turkiga oo in badan saaxiibo iyo walaalaba aan nahay waxa ay ka shaqeynayeen sidii xal loogu heli lahaa arrimaha ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia. maantana waxaa halkan loo fadhiyaa oo la isugu yimid in shirkaasi uu dhaco oo uu markaasi garwadeen ka yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. shacabka Soomaaliyeed waxaan mar kale la wadaagaynaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta madaxbanaanida wadajirka iyo ilaalinta dhulka Soomaaliyeed. anagoo taasi ka duulayna waxaan filaynaa in wadahadalkani uu noqon doono mid ka mid ah dadaalladaasi ay Turkiga sameynayso. waxaa xusid mudan in dowladda Ethiopia ay soo dalbatay wadahadalkan kadibna loo soo dhexmariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga oo isaguna ku soo wargeliyay madaxweynaha walaalkiisa ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud. arrintaas ayaa marka halkan u joognaa. wadahadalkana saacado kadib ayuu dhici doonaa. intaa wixii ka dambeeyana waxaan shacabka la wadaagi doonaa hadba wixii ku soo kordha iyo wixii ka soo baxa.